qaybta koowaad waxaan ku bilaabi doonaa heestan oo uu midhaheeda curiyey allah u naxariistee cabdi maxamed amiin, codka iyo laxamkana uu leeyahay daa'uud cali masxaf. waana heesta midhaheeda ay ka mid yihiin waxaan dhashay anoo xora, waxaan dhiman anoo xora. ninbaa wuxuu ku bilaabay sheekadiisii sidan: waxaan ahaa ilmo hooyadii dhimatay isaga oo sannad jira, hase yeeshee waxa ay soo koriyey ayeeyday aabbe. wax dhibaa lama aan kulmin intii aan ayeeyday la noolaa, laakiin markii aan jiray 2 sannadood ayaa aabbahay guursaday haweenay carruur nin kale u dhashay ama carmal ilmo wadata. kadibna aabbahay baa isoo kaxaystay, wuxuuna i keenay gurigiisii cusbaa. waana markii ugu horreysay oo dhibaatadu igu bilaabato, waayo haweenayda xun isugu mid maaha ilma ay dhashay iyo ilma aanay dhalin, ogowna dad isku wada mid maaha. waxaa dhacday in ay isoo food saartay dhibaatooyin kala duwan, gaar ahaan dhanka baahida, caafimaadka iyo daryeelka guud ahaaneed, taasoo ah inaan ka dayac badnaado ilmayaashii ayaday dhashay. haddaba aabbahay oo maqnaa kuna maqnaa safar uu xamar ugu maqnaa ayaa yimid gurigii, kana yaabay sidaan u ekahay iyo ilmihii kale oo waxar ka weyna. taasi waxay qiiro gelisay aabbahay, maxaa yeelay aniga aabbahay aad ayuu ii jeclaa, wuuna u adkaysan waayay dhibaatada ay soo gaadhay ee dhafoorkayga ka muuqata. malaha meeshana way ku jirtaa ilmo hooyo kala dhashay in aabbuhu ilgaara ku fiiriye. markaa ayuu su'aalahayd ilmaha maxaa ku dhacay oo ugu wacan dhibkan ka muuqda oogadiisa weydiiyey afadiisii, waxayna ugu jawaabtay waxaa haya wixii hooyadii dilay. aabbahay ayay u cuntami weyday jawaabta aan meesha looga fadhiin ee kaafka iyo kala dheerida ah. jawaabtiisana waxay noqotay mid adag oo aan la mahadin, taasoo ah inuu furay aayaday, halkaana reerkii ku burburay. hees midhaheed waxaa ka mid ahaa: dadku oonka caashaqa sababada abaarsaday hadday kugu ogaadaan kuma kaama daayaan. sanbabada abaarsaday hadday kugu ogaadan afxumowka madaaya. dadku oonka caashaqa sanbabada abaarsaday hadday kugu ogaadan afxumowka madaaya. hay adulmay ehelkeedu darayay tutaan la tahiyo xumada aday baday. sidana hay adulmay ehelkeedu darayay tutaan la tahiyo xumada aday baday. وخص الدنيا دوانا لبا أيامودي وخص الدنيا دوانا لبا أيامودي عم بقوم مدافين هدي وأكتي أبال مي تريسا أبال مي تريسا. nin iiga warramay kala tagii aabbihii iyo hooyadii wuxuu yidhi: waxaannu ahayn 4 carruura, 3 wiil iyo gabadh. anaa ugu weynaa carruurta, garanna maayo gurigii meeshii aannu uga guurnay, macnaha garaad hagaagsan ma aan lahayn. waxaan xusuustaa inay hooyaday galab ka ambabaxday gurigii iyadoo ay la socdaan 3 nin oo abtiyaday ahaa. 2 ka mida ilmaadeer ayay ahaayeen, midna way wada dhasheen sidaan dib ka ogaaday,
waxaan xusuustaa in carruurtu ka daba ooyeysay markii ay guriga ka ambabaxaysay. haddaba aabbahay markiiba wuu guursaday, waxaana dhacday in gurigii dhibaatooyin aan kala kulmay. aayaday allah u naxariistee markii guriga ay timi waxaa isbedelay habnololeedkii guriga markii hooyaday joogtay. haddaan haanta biyo ka cabo waxay odhan jirtay wuu xaday, taasoo keentay inaan waxado oo tuug noqdo. waxaan la kulmay oo qaaday cuqdad taasoo ka timi afxumada iyo habaarka aayaday oo joogto noqday. dil iyo hafriinsho aan caadi ahayna way ii geysan jirtay, wayna ila qabeen walaalahayga iga yaryaraa ee hooyaday dhashay. dhibaatada aan kor ku soo xusay ma garanayo dhibaato carruurnimada qofka gaadha oo ka weyn cuqdada iyo masabidka ama hafriinshaha. aayaday waxay isku dayi jirtay inay annaga iyo aabbahayo iska kaayo hor keento oo isku kaayo dirto. waxaana odhan karaa qaar badan way ku guulaysatay. aayaday aad bay u daryeeli jirtay walaalahayaga iyadu dhashay. aayaday allaha u naxariistee waxay dhimatay markay 6 carruura dhashay. aabbahayna walaasheed ayaa lagu xigsiisimay. anigu wakhtigaa waxaan ahaa 15 jir. aabbahayna waan la talageli jiray oo waxbuu i weydiin jiray. aayadaydii cusbayd aad ayaanu isu afgaran weynay. marka aabbe maqan yahay oo marti inoo timaada ayay diidi jirtay gogosha, taasoo sababi jirtay inaan dariska u baryo tago. gogol aan martida siiyo darteed suuryada iyo martiqaadkana way is hortaagi jirtay. taasina waxay igu dhalisay inaan guriga ka tago oo magaalo galo intii aayaday iyo aabbahay iska hor iman lahaayeen. waayo murtidu waxay leedahay wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo, marti leel xu socotana hadduu loogu qali waayo, raganimo lideed kuma jirtay liciya baloogaada. guriga iyagii dhammaan carruurtii aanay dhalin aayadayadan dambe sanad gudihii ayay kaga tageen oo ay suurtoobi weyday inay la noolaadaan. anigu magaalo markaan galayba waan shaqaystay, waana isa soo saaray oo weliba guursaday oo xaas baan yeeshay. isaga oo ka jawaabayay su'aal ahayd adigu markaa ma ku taba doonatay wixii ku soo maray oo haweeney weligaa ma furtay, wuxuu yidhi haa. aniga oo 22 jir ayaan guursaday xaaskii igu horreysay, wiil bayna igu curatay. nasiib darrase waxay noqotay waxba la'aan. xaaskaygii waa loo sheekeeyey, waxaa lagu yidhi bal ninku inuu ku jecel yahay in kale aan kala ogaanay. iswaal wayna iswaashay iyadoo wiilkii ay dhashay. xaafad Soomaali habar joogta loo geeyey iyada oo laga dhigayo inaanay ilmaha hayn karayn waalidaa daraaddeed. aniguna ma fahamsanayn qisada meesha ku jirta. waxaan baadidoon u galay sidii aan ugu guulaysan lahaa caafimaadka xaaskayga. kanow fiqi ma tahay, kanow faaliye ma tahay, kanow fuuxiso ma tahay. waxaan ku daalay oo ku kharash beelay wadaado wicid saarka tumid arrimo khaldan oo been iyo khuraafaad ah. markaan shaqada aado ayaa layga daba iman jiray oo la dhihi jiray baxsatay carartay oo jaan iyo cidhi meel ay dhigtay lama hayo. arrintaas oo shaqadaydii wax weyn u dhintay kuna dhoweysay in shaqada layga eriyo ama layga cayriyo. markaan guriga imaado oo soo garaaco ayaan maqli jiray buuq iyo sawaxan isla oogsaday. waxaan markaa ogaaday inaan waali dhabihi jirin ee meesha hawl kale lagu hayo. dabcan baadhitaan ayaan sameeyey. beeniinta ay socon kartaa waa waxaan weynayn amase buurayne amase badnayne. habeenada ka mid ah ayaan dadkii hayay ku yidhi idinku iska taga. markay tageen dadkii oo labadayadii isku soo hadhnay waxaan ku idhi gabadh yahay laba kala dooro, inaan aroortii ku furo oo warqadaadii ku siiyo iyo inaan maanakoobiya kuu diro meesha dadka waalan lagu xanaaneeyo. waanan seexday. markii ay ogaatay inaan gamay ayay tagtay oo wiilkii ka soo qaaday islaantii haysay. habeenbadh ayaan toosay mise wiilkii bay dhabta ku haysaa. iyada iyo wiilkuse way kala gureen oo ma jaqsiin naasaha. aroortii ayaan eegay wiilkii mise wiilka dushiisa waxaa ka muuqda dhibaatooyin ka dhashay kutaan, kaneeco, injir, nafaqadarro, daryeel darro, nadaafad darro iyo wixii la halmaala. dushiisa ma eegi kartid, wuxuuna ku dhow yahay inuu dhinto oo dhuunigaba cuni waayo. waxay ahayd wax argagax waalid miyir leh gelinaya ama ku abuuraya. waxaan markaa goostay inaan wiilka miyi iyo gabadhii walaashay oo markaa baxsiya u geeyo si uu wiilku u nafaqaysto oo diiftu uga bacdo. gurigii aabbahay oo miyi ah, carruurtii hooyada iyo aayadaydii hore dhaleen aan markaa cidi ka joogin gabadha mooyee. kuwa ay aayadaydan yari dhashayna markaa waxay ahaayeen carruur weli yaryar oo curgug ah. wiilkii gaadhi ayaan ku qaaday, waxaana geeyey gurigii aabbe. gabadha walaashayna waxay ahayd baxsi ka adag haynta iyo xanaanaynta wiilka. markii aan magaaladii dib ugu soo noqdayna waan furay xaaskii, sababtoo ah waxaan ogaaday inay tahay qof aan caqli wanaagsan lahayn iyo iyadoo rajo ahayd oo aan ku soo dhaqmin gacan hooyo.
taasoo ay weheliso naaga u sheekeeyeen naag la'aan weeye. muddo haddii aan ka soo maqnaa reerkii iyo wiilkii ayaan dib ugu noqday bal si aan u soo ogaado xaalka wiilkii iyo gabadhii aan dhowaantan geeyey gurigii aabbo oo baadiye ama miyi ahaa. haddii aan soo gaadhay reerkii oo aan salaamay ama nabdaadshay oo waraystay xaalkoodii sida uu yahay, gabadhii walaashay ahayd waxay tiri reerka la joogi mayno. maxaa yeelay ama maxaa wacay? aayadeen waxay isku dayday inay wiilka disho. yaab ayaan afka kala qaaday, waxaana weydiiyey waxa gabadha ka soo yeedhaya bal waxa uu yahay. waxayna ku bilowday sidan: ayadeen waxay la colowday haynta aan wiilka hayo oo waxay habeen annagoo guurayna aqalkana furfuranayna, wiilkuna markaa hurdo ayay inta soo qaaday naadh, waa weel biyaha lagu shubo oo dusha ka saartay wiilkii. kadibna awr ka mida awrtii la rarayay oo damacday inay ku dul fadhiisiso. awrkii ayaa diiday inuu fadhiisto oo cabaaday, iyaduna waxay doonaysay inay khasab ku fadhiisiso. markaasaan weydiiyey, ee wiilkii mee? intaan ka soo waayay meeshii uu jiifay. markaasay iigu jawaab celisay, dee mooye. xaggaan u booday oo xagga u booday anigoo werwersan, mise wiilkii wuxuu ka booyayaa awrka hoostiisa, iyaduna awrkay garaacaysaa oo leedahay juu colku raraye juu. naxdin ayaan qaboobay, laba daran lagu kala duuransiiyey. ma gabadha iyo wiilkaan kaxeeyaa oo aabbahay ayaan cidla kaga taga, adhiga wax u raacaa waaye, mise wiilka yar iyo gabadhaan cadaabkaa kaga tagaa? xusuustiisii oohin ayaa isku soo taagtay indhihiisa isagoo ka qoomamoonaya furiinkii xaaskii wiilka dhashay iyo dhibaatada haysa wiilka yar iyo gabadha, labadaba kala tagga aabbaha iyo hooyadu dhabbaha uga dhigeen dhibta. wuxuu yidhi, gabadhii walaashay ayaan maalintii adhigii la raacay si aan u waaniyo oo wax u hoga tusaaleeyo. waxaana ka mid ahaa waxyaalihii aan ku waaninayay walaashay, walaal, aabbo wuu ina inkaarayaa haddii uu waayo wax adhiga u raaca. markaa dhowaan marka ay carruurtu u ciidamiso ayaan idinka kaxaynayaa ee iska samra, adkaysigana ogaada, wax lala simo ducada waalidka ma jireen. haddaba akhriste, waa dhib gaadhay aabbo iyo wiilkii oo ka yimid furiin. ogsoonow inuu furiinku yahay waxaan habboonayn oo u baahan in laga warwareego intii laga warwareegi karo. ogsoonow in inta badan oo dadka ahi si fudud ugu tallaabsado furiinka, taasoo ah fahmid la'aanta xuquuqda guurka, ilmaha, nolosha iyo wixii la halmaala. carruur badan waxaa soo gaadha xilliga korriimada oo ah xilli ay baahi badan u qabaan xanaanada iyo tulidda naxariista eebegeliyey qalbiyada bini'aadmiga, taasoo haddii ay waayaan keenta dhibaatooyin aan ka hadhin inta ay dunida saaran yihiin oo ku dheehnaata garaadkooda iyo garashadooda, sababana inay ahaadaan naxariis laawayaal. waxaa in la xuso mudan ayayada oo kaalin weyn ka geysata korriimada carruurta tabaalaysan ee ugu timaada agoonnimada, rajada, furiinka oo aan isaga marna loo qiildayi karin. ayayadu waa udubdhexaad, waana uriso, walow aan kaftani hablo badan necab yihiin wiilka hooyada leh. waxaa la yidhi nin boqor ayaa waa hal iyo nirig meel fagaare ah keenay, wuxuuna yidhi, ciddii sheegta dhibaato soo martay oo yaab leh ayaan siinayaa hashaa iyo nirigteeda. hal iyo nirigteeda oo la helaa waxay ka dhignayd waxaan la malayn karayn wakhtigaa la joogaye. nin ayaa istaagay oo yidhi, boqor, dhul oomane ah ayaanu waa ku noolayn oo degganayn. dhulkaasi wuxuu ahaa dhul baad leh, laakiinse biyo ka dheer ayuu ahaa oo biyaha markaannu doonno waxay nagu qaadan jirtay dhowr caanamaal. waa min qiyaas soomaalida reer miyiga ay wax ku qiyaasto inaan u sii soconno ceelka dhowr caanamaal oo kalena ka soo soconno. mar ayaan dhaan u kaxeeyey ceelkii aannu biyaha ka soo qaadan jirnay. waa dhaan 2 awr ah oo 4 haamood ama dhoomood iyo dhexdhigyadood ah. waa biyo reerka markaa muddo ku filan marka ay dhaqaalaystaan oo dhacartaan. haddii aan biyihii soo dhaanshay oo muddo soo socday, goortuna ay habeen tahay, ayaan jeedaaliyey awrkii dambe, mise wuu xidhiir furtay oo lama socdo. kii aan hogaaminayay ayaan geed ku xidhay oo u ambaqaaday inaan awrkii gaadho, anoo u filayay inuu meel dhow igaga hadhay. dafdaf dabadeed waxba waan waayey.
waxaanan aroor hore kor tegay awrkii oo waraabayaal ka hirqadeen hilibkiisii iyo haamihii oo dalooshamay kalana daadsan dhulkii waraabayaashu xalay awrka baacsanayeen. waxaan talo ku gaadhay kii kale iskaga hanti hur oo reerkii biyaha la gaadh. waxaan soo degdego oo soo gucla rooraba waxaan imi meeshii aan awrka ku xidhay oo intuu xadhiggii isku ceejay markii aan ka dhaqaaqayba naftii ka tagtay oo ka olyatay oo uu baktiyey. waxaan afka saaray ooshii iyo reerkii anigoo faramadhan. nasiib darrase waxaan imi dadkii oo raadlaayay. boqorkii ayaa ugu jawaabay celiyey, waxba ma aad arage iska fadhiiso, kuma aad guulaysan hasha iyo neefkeeda kaxaysigoode. nin kale ayaa istaagay oo damcay inuu sheekadiisa ku furto hasha haleelada ah iyo ilmaheeda. wuxuu yidhi, boqorow, waxaa meel cidlaa iga helay libaax aar ah oo dadcun ah. haddii aan is aragnayba waxaan galay god igu dhowaa oo aan nafta kula orday. isagiina ilayn wuu i arkayay, godkii buu iga soo dabagalay. horaan u galay godkii oo hore u xuluushay, isna waa iga soo daba xulay. nasiib wanaagse godku gunta dambe ayuu u dhuubnaa oo wuxuu soo xuluushaba wuxuu ii soo dhaafi waayey meel aan ka badnayn 3 tallaabo. dibna waa u noqon kari waayey. libaaxii oo waxaa isu qabtay godka qarkiisii sare iyo xaggiisii hoose. markii hore ee uu soo xuluulanayay kumuu fekerin dib u noqoshadiisa. markana way ku adkaatay inuu isjimbuco oo dib u laabto. hortayduu labalaxaadsaday gooh iyo ci. dhegaha idlaacay oo wadnahayga ku sigtay inuu dabadda ku soo dhaco. maalmo iyo habeenno badan ayuu meeshii yuururay, kadibna wuu dhintay. lamase dhaafi karo inaan iska sugo marka uu qurmo oo lafo noqdo mooye. wuuna qurmay sidaan filayay. hilibkiisa ayaan markuu qurmay cuni jiray, anigana dirxiga ka yimaada bakhtiga ayaa i cuni jiray. muddo markii aan halkaa ku jiray oo libaaxii dhammaaday oo isku dumay lafihiisii mooye hilibkiisii ayaan ka soo baxay godkii. boqorkii wuxuu yidhi, waxba ma adarag ee iska naso, kuma guulaysan inaad hasha iyo neefkeeda meesha ka furatee. dadkii meesha joogay oo qofba islahaa waxaad hayso waxay kuu goyn karaan inaad nasiib u yeelato helidda hasha iyo neefkeedu hungurigoodii bay dib u liqeen. hase yeeshee nin kalaa istaagay oo yidhi, boqorow, naag xun ayaan qabi jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa coli helay. colkuna waa badnaa. waan cararay, iyagiina way baacsadeen. wayse i gaadhi waayeenoo waxay baacsadaanba waxaan soo gaadhay duleedkii gurigayga. halkaa markuu marayay ayaa boqorkii yidhi, war aamu oo hasha kaxayso. taasi kama dhigna in sheekadu dumarka xun ku socoto, ee waa la mid ragga xumina. oo haddii qof dumari meesha istaagi lahayd oo odhan lahayd, boqor nin xun ayaa berigi qabay, wuxuu shaki la'aan odhan lahaa, boqorku hasha qaado oo nurigteedana ku darso. sheekadan inteeda hore waxay u eg tahay sheekadii nin reerkiisii markii col ku habsaday meeshii ugu yimi haweenay foolbaxsi dartii kaga badbaaday colkii reerka baabi'iyey oo iyana ceelasha walwaaleed kaga dhacday. ayna gacantiisa ku soo hadheen ilmihii iyo isagoo qaawan. uuna ka tiriyey gabay u eg gabaygan cali aadan gorayo. qoda dhagaxlay, qooriga haye iyo tuban qafaalkeeda, qowdhaha ka baxay tuur wareen iyo qarara baasheeda. qoomkii intaa degi jiray baanquri ka noolayne waa loo quweyn jiray tolkay. qaadka booliga ashkir qoor qab xamar qaayiba iyo qalas ma fuulaane. qol dugsoon intay jiifsadaan qalay ma fuudaane. qalyo gabadha qaaliga haween qoojin ma hayaane. anigaba adduuniga qatalan quusna waanahaye. qoomkaad ogayd baan la shiray amase qoor waaye. caawana qudhaydiyo cabdiyo qaawan bahadhaye. dad badan ayaa sabab u ah dhibaatada soo gaadha carruurta inta ay yaryar yihiin. waxaana talo ku odhan lahaa, dadku ha barteen waxaa laga yidhi xuquuqda guurka, xuquuqda carruurta, xuquuqda waalidka. ha ka doonin meel dheer ee diinta islaamka ugu noqo uu ka daalaco. taasina waxay badbaadinaysaa guryaheenna iyo awlaadeenna. ogow in marka laysukaansanayo ama laysxodxodanayo ay wanaagsan tahay in runta laysu sheego oo qof waliba dabeecadiisa ceebaheeda ka warramo. waa khuuriya ha ugu sahlanaatee. malahayga waa wax suurtagal ah cabirka abwaanku ku muujiyey heesta sacab Soomaaliga ah ama cayaar Soomaalida ah ee tiraahda, dhirta geed hadoodiran oo ku hardacaare baa jira, laan yar oo qatoola ah
oo ku qarqarisa baa jira. Dumar halalac marajiid marka hoyga lala tago lagu hogay baa badan. Waxaan uga jeedaa labada nooc ee dumarku way dhaqan yihiin, sidaa oo kale labada nooc ee ragguna way dhaqan yihiin waana badan yihiin. Ee ka fiirsi ha loo daymo lahaado intaan xeelo iyo fandhaal kala dhicin, haddii kale dad qal ayaa gabadh godkiisa ugu tegi doonta markaasuu carruurta iyo iyadaba isku cuni doona, ama dad qalatadii dhagdheer oo weli joogtuu dalaq u odhan doona. Nin ka waramay kala tagii aabihii iyo hooyadii wuxuu yidhi, aabbaha iyo hooyaday waxay kala tageen annagoo yaryar, waxaanuna ahayn 4 carruur ah, gabadh iyo 3 wiil. Carruurtana anaa ugu weynaa oo waxaan ahaa 6 sano jir. Markii ay kala tageen, hooyaday waxay qaadatay gabadhii, aabbahayna wuxuu la hadhay wiilashii. Aniga markiiba wuxuu ii geeyey reer ay qaraabo ahaayeen oo ilaa 6 oday isugu tegi jireen. Adhigiina reerka ayuu u dhiibtay. Qofkii dumarka ahayd ee reerka la ii geeyey lahayd waxay ila dhaqantay markiiba si aad u qallafsan oo aad u adag. Isla markiiba xoolahay raacsatay. Waxaan la jaan qaaday dhoobinimo, waxaan soo maray dhibaatooyin aan la tirin karin iyo waaye madow oo adag. Waxaan odhan karaa dhafoorkayga qaar baa weli kasii muuqda. Waxaan ka xusi karaa in ay raashinka aad iigu yarayn jirtay oo igu suququlin jirtay. Way garaaci jirtay sidii dameer aan cidina lahayn oo kale. Mar uu ka jawaabay balamuurihii ugu darnaa ee ka qabsaday reerka uu la noolaa yaraantiisii wuxuu yidhi, waxaa ila yaab badnaa waxyaalihii soo maray carruurnimadaydii. Ma lahayn meel aan seexdo iyo waxaan ku seexdo midna. Waxay habeenkii igu tuuri jirtay meesha aqalka maqasha lagaga xidho, halkaa oo maqashu dusha iiga tumin jirtay habeenkii oo dhan. digada iyo malka maqasha ayaana wehel ii ahaa oo malaha waxaan ba ahaa neef ka mid ah maqasha. Run ahaantii waxay ahayd wax yaab leh oo murugo leh. Muddo kadib waxaa la ii geeyey eedadii oo hawdka buuhoodle lagu qabo, halkaa oo aan uga aag bedeshay sool iyo xadeed. Eedaday aad bay ii caqiibaysay oo koritaankayga wax uga qaadatay. Haddii aan in muddo ah la noolaana, eedaday waxaa dhacday abaartii dabadheer ee 1974. waxaan ka mid noqday dadkii loo raray koonfurta Soomaaliya, waxaana la ii geeyey adeerkay oo aan markaa xaas lahayn. Aniga iyo adeerkay waxaan ku wada noolayn guri, wuxuuna ii geeyey iskuul. Markii aan iskuulka tagnayba waxaa nala weydiin jiray yaan aabihii iyo hooyadii la noolayn. Markaa fartaan taagi jiray, waayo adeerkay xaas ma lahayn oo reero ayaanu dulsaar labadayaduba ku ahayn. Xagga wax karsiga iyo dharmaydhka hurdadaasi guri baanu lahayn. Aroor ayaa nala yidhi ciddii aan aabbe iyo hooyo u joogin waxaa la geynayaa kolleejo lagu xanaaneeyo ee beritaa soo diyaar garoobeen. Markii aan guriga aan adeerkay kula noolaa ku laabtay ayaan Ilaahay baryay inuu aabbahay ama hooyada indhaha ii saaro, waayo waxaan ka murugooday kolleejada oo aanan wax fikrada ka haysan. Mise markiiba waa hooyaday oo kunturwaaray ka timi ayaa albaabka ka soo gashay. Anigu buu yidhi markaa waxaan joogay Sablaale. Hooyaday ayaana maalintaa wixii ka dambeeyay la noolaa. Iskuulkiina halkaasaan ku dhameeyay dugsiga dhexe. waxaan galay oo nasiib u yeeshay dugsiga farsamada gacanta oo aan ka qalin jibiyay. waan shaqaystay, waxaan bartay xirfado kala duwan. reero ayaan yeeshay oo ilaa 3 dumar ah ayaan furay. Carruurta Ilaahay waa ii hibeeyay, isagoo ka jawaabay haddii aad dhibka soo martay maxaad u dooratay inaad ilmahaagana jirrab ka mariso. wuxuu ku jawaabay, dumarka maanta iska leh eedda lagu kala tago badideeda. sidaa ayaan aaminsanahay. waana tii ilmo Soomaaliyeed hore u yiri, hooyadayna waxay keentaa waxa lagu dagaalamo, aabahayna wuxuu keenaa waxa lagu kala tago. run ahaantii marka taariikhda dib u raacdo, dumarkii Soomaalidii hore marka la doono ama la damco in la furo gurigay ku dhigi jireen oo ma ogolayn inay carruurteeda dayac uga tagto oo ka maqnaato la noolaanshahooda. waxayna ahayd sharaf weyn iyo taariikh aan la hilmaami karin. dhibaatooyin badanna waa la markin jiray, balse waxay ku ilaawi jireen lutfiga iyo turidda ay u hayso ilmaheeda, ugana turayso dhibka soo gaari kara ka maqnaanshaheeda. waxayna naxariis aan la ilaawi karin u hayeen ubadkooda oo ficliyan in badani u aayeen ubadkaas ka gadaal markii ay koreen oo in uu naxariisa eebe u geliyay. hooyo Soomaaliyeed oo qaali waxay tidhi, labada bawdiyo intay baridu guban lahayd, duleednaa kale intuu duufka luli lahaa, maduulahay uu naftan kuu dulaynayaa. maanta sidii maaha, isbeddel ayaa dhacay. hadday dhasho inaanay naasaha u dhigin, haddii la murmo inay caytanto, haddii la furana inay ilmaha tuurto oo tafaha qabato oo dhaqaaqdo.
walow la wadaago dhibaatada kala tagga iyo furiinka iyo burburinta reeraha isna waxaan odhan karnaa qayb aan yarayn ayay leeyihiin dumarku, waayo ilmuhu sida uu uga maarmo aabbaha ugama maarmi karo hooyada haddii aan geeriyi meesha iman. waxaana habboon in labada nooc ee dadku ka waantoobo basarxumada keenta dhibaatada carruurta ku habsata. saaxiib kale wuxuu ku bilaabay sheekadiisii: rajay ayaan ahaa, hooyaday waxay dhimatay habeenkii ay dhashay naf ahaantiisii oo waa umularoortay. waxayna u dhimatay marka laga yimaado wakhtigeedii oo dhammaaday, dhiigga dhalmada oo isku taagay awgii iyo farsamada iyo habka umulsanimada oo aad u hoosaysay berigaa. allana ha u naxariisto hooyooyinkeen mid dhimatay iyo mid noolba ayeeyaday hooyo ayaana markiiba i qaaday oo naaskeeda ii dhigtay, naaskaasoo ilaahay ii irmaanshay wakhtiga oo adkaa, iyo ayeeyaday oo aan markaa 5 sano wax dhalin. ilaahay siduu doono ayuu wax u nooleeyaaye wakhtiga lagu jiray wuxuu ahaa wakhti abaareed oo aan xoolo irmaanayn. hooyadii inuujin lahaydna waa tanoo waa la oofsaday. ayeeyadayna markay wax ay siiso weyday garanna weyday si ay yeesho ayay naaskeedii afka ii gelisay, waana ii caanoobay oo ii irmaanaaday. naaskeedii waxaynuna odhan karnaa waa mucjiso. sharcigu siduu qabo anigii hooyaday walaalo nuugmo ayaanu noqonnay. waxaa kaloo xusid mudan in reer abtigay markaa ahaayeen reer sabool ah, taasoo aan odhan karo labada arrimood oo buuggani ku socdaaba anigu waan soo maray, taasoo ah rajaynimo iyo saboolnimo. markii aan 6 jir ahaa ayaa aabbahay kaxaystay, wuxuuna ii geeyey walaalkii uu reer miyi ahaa. aabbahayna xoolo u hayay ayuu ii geeyey oo iiga tegey, waayo aabbahay magaaladu ka shaqaysan jiray, wuxuuna ku noqday sabool. xoolihiisiina siduu marba mid u iibsanayay ayuu ku dhammaystay. anigu xoolahan wax ka raaci jiray oo wakhtiga aaranka adhigan raaci jiray, wakhtiga adagna geelaan wax ka raaci jiray, waayo carruurta guriga joogta aniga ugu weynaa. ayadaydii aan la noolaa oo adeerkay u dhaxdayna waxay ahayd qof kulul, aad ayayna ii dhibi jirtay. xagga raashinka waa iigu darayd oo wax badan ima siin jirin. waxay igu odhan jirtay weel caagadaa oo culus soo dhaami, marmar 20 litir qaad ayay ii dhiibi jirtay oo ceelka oo badana naga fog iigu diri jirtay inaan ka soo dhaansho. waxay ahayd dhib aan yarayn, waayo waad garan kartaa ilmo yar oo aan kuriin fiican qabin inuu qaado weel sidaa u culus inay dhibaato tahay. marmar kalena 4 caagadood oo minshanqaad ah ayay ii dhiibi jirtay oo ii xambaarin jirtay, waxayna isoo markisay ama marisay dhibaato iyo ciqaab cadowtinimo ku jirto. mar uu muuse ka jawaab celinayay bal dhibaatadii ugu darnayd ee uu xusuusto oo ka soo martay aayada carruurnimadiisii uu la noolaa, wuxuu yidhi: maalin ayaan aniga iyo aayaday adhi u aruurinay meel fog ceel ku yiil, adhiguna waa guulinay. daal iyo baahi badan ka sokow markii aanu ceelkii nimid ayay amar igu siisay inaan adhiga soo horo, kan soo fulana aanu baxsan. waa 2 shaqo oo aan qof yari ka wada bixi karin. ceelkuna wuxuu ahaa ceel buuqa oo waxaa ka buuxay kumanaan iyo kumanaan xoolo ah oo maalintaa isugu yimid. markii aan dhowr goor horay ayaan awoodi waayey inaan adhigii fuliyo, waayo markaan xaggaa iyo kan soo fulay aado ayaa kii kale dareeraa oo ceelka ku yaacaa. orodkii aan marba dhan u ordayey ayaan xuurtoobay oo itaal hidin kari waayey. intay dhangad iila timi ayay gowda iga saartay, waxaana igo'ay xidid madaxa ah oo dhiigaygii kor iyo hoos u shubmay. markii uu muuse ka sheekaynayay sidii uu uga baxay nolosha murugada iyo quusta leh ee soo martay, wuxuu yidhi: markaan 14 jir ahaa aanna markaa ku tirsanaa raacidda adhiga, waxaa maalin maalmaha ka mid ah dhacday in adhigii iga goosmay oo iga lumay qayb dhan ayaana waayey meel ay jaan iyo cirib dhigtay. adeerkay ayaana baadidoon u raadiyey adhigii iga goosmay. adeerkay wuxuu ahaa nin macaan oo dabeecad fiican. haddii uu dhowr caana maal ku maqnaa, baadidoonkii adhiga ayuu kor tegay raqdii adhiga 10 sabeenood oo ugub ah oo weer u xiiray amaba ka kowsiiyey. markii adeerkay soo noqday oo warkii gurigii keenay, aniguse markaa aan maqnaa oo adhigii la jiro, ayaa waxaa iga hor yimi ilmo aanu ilmo adeer ahayn oo ii sheegay in aayaday ii dhaaranaysay kana xumaatay idaha bahalku laayay. markii aan warkaa cabsida leh ogaaday ayaan riyo 4 maalay anigoo afka ku maalaya. gabalkii markuu dhacayna duleedka ayaan ka wareegay oo waxaan habeenkii jiifsaday jabad madhan oo cidlo ah ooga hore ee aroortii markii shimbiruhu ciyeenna.
ooga hore ee aroortii markii shimbiruhu ciyeenna waxaan ka kacay meeshii aan xalay u hoyday oo waxaan aaday magaaladii oo markaa noo dhoweyd. maalintiiba magaaladii ayaan gaadhay oo aabbahay oo afurayaan u tegey. aabbahay dad anigoo quruu leeyahay. haddaba waxaa run ah in waxyaabahan oo dhammi ay yihiin dhibaatooyin dhacay amase dhici doona inta adduunku jiro, waana mid ka mid ah imtixaanada adduunka oo dadka qaar ku foosi doono, qaar kalena ku dhici doono. waxaana wanaag leh kuwa ku foosa ama ka gudba oo dareema waxa ka dambeeya, waayo maanta waa adduun, berrina waa aakhiro. ilaahowna cafi oo noo dhaaf waxaan samaynay, deeqdaada iyo naxariistaada aan la koobi karin daraaddeed. aamiin aamiin. alle naxariistiisa ballaadhan ha ka waraabiye. ninkani wuxuu ka mid ahaan jiray golaha guurtida Somaliland, wuxuuna sawirkiisu sugnaan jiray isaga iyo 4 oday oo kale aqalka madaxtooyada ee Somaliland. wuxuu iiga sheekeeyey sidii uu soo koray, wuxuuna ii sheegay inuu rajay iyo agoon labadaba ahaa. sida uu ii sheegayna wuxuu yidhi waayadaa aan carruurta ahaa dadku wuxuu u wada degi jiray qoysas badan oo ilaa 7 iyo 8 aqal ah ama wax ka badan, kuwaas oo xerada wada geli jiray. mana ahayn xaalku sida hadda loo dego miyiga oo ah 2 aqal ama waxa loo yaqaan jees oo hal reer keliya ah. wuxuuna yidhi maadaama aanan lahayn hooyo iga warqabtay iyo aabe ila socda midna, waxaan ka tirsanaa reeraha badan dhexdooda. inkastoo aan dhib qabay, waxa igu darnaa marka carruurtu hooyooyinkoodu wax ka xadaan ama wax ka hadleeyaan anigay dusha iga saari jireen. inaanan lahayn hooyo ii dooda ama aanan isdifaaci karayn awgeed. dhib aan yarayn ayaa soo gaari jiray oo xaqdarro ah. bulshada dhexdeedana waxaa la iiga aqoonsaday qof xun oo tuuga. haddaan muddo sidaa ku jiray, maalin maalmaha ka mid ah ayaa beeshii guurtay. sida caadada ahna marka la guuro waqtiga waa beriga ah, xoolaha lama maalo ee waxaa lagu talagalaa in marka la digo la maalo, siiba geela oo Soomaalida meel adag kaga yaalay waagaa. waxaanu sii soconnaba waxaanu degnay dooxo barwaaqo ah waqti hargalma ah. markii la degay jeexa dhexdiisii ayaa laga ooday edeg nirgaha lagu xereeyo si geela loo maalo. geelii waa la maalay, reerihiina sabarka dooxada looga xero dhigay. edegiina meeshii baa looga tegay oo lama baabi'in, waayo oodiisaba looma baahan. markaanu maalin meeshii naalay ayaan aroor labaadii oo dadku mashquul xoolaha ku yahay, waxaan kaxaystay carruurtii oo dhan waxaana ku xereeyey edegii. oo waxaan ku yidhi intaan oodii u soo rogay, qof yeedhaha yeelanina libaax baa ina cunayee. intay baqeen bay iswada nabeen oo qof ooya iyo mid hadlaba laga waayey. milic ba'anina waa naga heshay meeshii, balse waa ku gabaldhacsannay oo carruurtii way wada seexdeen siday isu nabayeen. dadkii maalin barhkii bay carruurtii tabeen wayse waayeen oo waxay galeen baadidoon. markaa maalinnimada lagu jirayna dumarka uunbaa baadidoonka ahaa, raggu aalaaba waayadaa wax shir qabta iyo wax xoolaha raacu ahaan jiray. maalintaa iyo habeenkiiba beeshii wuxuu u ahaa baadidoon iyo balasle. waxse lama helin, edegana lamaba minfilaadin oo cidi xaggiisaba ma soo aadin ama lamaba eegin. haddii waagii baryey carruurtiina toostay ayaan ku idhi iska sii jooga, caanaan inoo keenayaay oo intaan oodii iska leexshay guryihii aaday. digsi dhitaa oo habar waayeeli dhitaysatay ayaan u tegay oo dhamay. baaqigeena qaaday oo carruurtii la aaday. waxaase i aragtay islaantii, markaasay qabatay oo qaylisay. dadkii meelaha ka dhowaa ayaa ii yimi, markaasaa carruurtii meeshii edega ahayd laga soo saaray. dadkii baadidoonka ku maqnaana dab loo shiday si ay u ogaadaan in carruurtii la helay. haddii laysu soo wada noqday oo waagii labaad beriyey ayaa raggii reeruhu shir waceen. anigu buu yidhi markaa ilaa 7 jir ayaan ahaa. shirkii ayaa lay dhex taagay, waxayna odayaashii i weydiiyeen waxaan carruurta cidlada ula galay. jawaabtaydu waxay ahayd mid cad oo waxaan odayaashii ku wargeliyey in dumarka reeraha aan dhibaato ku qabo oo marka carruurtoodu waxallayso aniga dusha layga saaro. inta arrintaa laygu hayana aan ka dagaalami doono oo carruurta meel aan laga helin ula dhaqaaqi doono. odaygii odayaasha u weynaabaa amar ku bixiyey in dumarka loo yeedho oo shirka la hor keeno.
waana loo yeedhay oo la soo taagay madashii shirku ka socday, waxaana dhaar adag dabadeed loo sheegay qofkii dumara ee hadda kadib Cumar ka soo sheegto dhib in aanay guryaha joogayn. maalintaa laga bilaabo dumarkii reeruhu waxay bilaabeen inay dhaqaaleeyaan oo dhibkii iga daayaan. tacaanaha ii qarinaysaa ha dhanaaneen ama dhay ha ahaadeene tira ma leh, hilibku meel ma dayan, oo marka reeruhu shidhaystaan, shiladu waa xoolo la qasho marka lagu jiro wakhtiga adag ama loo yaqaan jiilaalka. badanaaba berigii hore raashin ma jiri jirin oo xoolaha dadka raashin u ahaa, waxaana la qali jiray habeen dhaaf, waana halka lagaga maahmaaho 3 lalama noolaado. buur aan shaahid lahayn, oday aan sheeko aqoon, habar aan sheel lahayn. maalmuhuna waa buur aan dhir lahayn, lama eegi karo oo indhaha waa u daran tahay. oday aan jiilaalkii carruurta u sheekayn oo sida loo dhegaysanayo aan laga seexan oo habeenkaa neefkii la qali lahaa badbaadinna. oday hagaagsan maaha. dumar aan wax dhaqaalayn oo wax sii kala dhiganina ma wanaagsana. foos waxay tidhi, inkastoo aabbahay nin maalqabeena ahaa, misna dhibaatada carruurta gaadhaa waa mid ballaadhan oo nin waxhaysta iyo mid faramaranba haddii furiin yimaado ilmaha waa madax u yaal. aabbahay hooyaday iyadoo yar buu guursaday, iyaduna rajay ahayd oo hooyo ma lahayn. markii ay 3 carruura dhashay ayaana aabbahay furay hooyaday, waxay isku qoonsadeenba. maadaama ay qof yar ahayd, isna uu nin maal haysta ahaa, intuu eryey ayuu ciyaalkiina u diiday. hadday ashkatootayna waa la xidhay oo waa uga sii daray. annagiina haweenay uu qabay buu noo keenay oo yidhi hay ficliyan weynahay korisay, dhibse waa ku qabnay ciyaalkeeda oo aan naxariis badnayn awgeed iyo iyadoo aanan beerkeeda ka soo bixin. muddo yar dabadeedna aabbahay wuxuu noo raray London oo guryo nooga iibshay. 3dayadiina mid waa dhintay, 2dayada kalese eedada ayaana soo korisay. aabbahay Allahna u naxariistay waa bukooday oo sariir buu ku ururay. aayadayna iskuul ima geyn ee boo'isay iga dhigatay. gurigaan fiiqaa, waxbaan masaxaa, waxbaan kariyaa, hawl oo dhan baan qabtaa, waxna ma barto. kanila dhashay isaga iskuul waa la geeyey, aniguse waa laygu shaqaystee dil, cay, afriinshaa ii dheer waxaan qabo. haddaan aabbe u dacwoodo gar layma siiyo oo inta kale igu furta markhaati beenaale inaan anigu dhiblay ahay ama aan sumbo aan lala dhaqmi karin ahay. allahayow dad ma aqaan, allahayow dal ma aqaan, qori daadsitaanahaye dawga ha iga raaridin. waxaan silic ku noolaadaba waxaan ka war helay in abtigay magaalada London joogo. waxaan telefoonkiisa baadid goobaba waan helay, laakiin uu iga qaban waayay waayo wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aan hore guriga u tegin. fariimaha sida loo duubana ma aanan aqoon waagaa, koorta hadalkuna berigaa ma jirin. telefoonka gacanta ayaan sheegaynaa. maalin ayaan baxsaday anigoo isleh abtigaa wac inaan ka waco guriga cid lama ogolayn. aabbana dabaqa sare ayuu jiifay oo ku bukay, waxaa hoos ka socdana lamaba uu socon, tiisaa cuslaysay. anoo Yurub waa dhaxane wareegaya gidaaro baraf looga waashay ayaa gabadh Soomaaliyeed heshay. iyadii baa gurigeedii igeysay oo ihaysay 2 habeen. abtigayna la hadashay. yeelkeedii abti gurigii buu igu soo celiyey. aabbana way wada hadleen, waxse ima ay tarin. dhibkaa waxaan ku jiraba hooyaday oo ciyaal kale wadataa wadankii soo degtay. iyadii baan markaa u tegay, imase hayn karayn oo meesha ay deganayd qaxootaa loo dejay oo meel iyada iyo 3deeda carruura ku filan bay ahayd. aabbahayna ma uu ogolayn inaan ka maqnaado. hadal iyo dhammaantii marna hooyaan la joogi jiray, marna guriga aabbaan tegi jiray. dad igula taliyey inaan bilayska u tagana waan diiday oo aabbahay oo liitay inaan askar dul geeyo waan nacay. dib ayaan iska daba qabtay oo iskuul ka tegay. dhaqsiinyana waan guursaday oo reer baan yeeshay. eedada iyo kuwii walaalahayna waan iska cafiyey. waxay imarkiyeen if iyo aakhiraba anna 10 baan ka faa'iiday inaan carruurtaydu tii isoo martay mid la midii ku dhicin insha Allah. carruurta dhibban ee Soomaaliyeedna waan u damqanayaa. suugaantii Cali Cilmi Afyare. haddaba maanta waxaan inooga soo qaadnay gabayga kan. haawiya lagee waa bakhay lagu hungoobaye, haddaad waayo soo haybiso hawshi ku abaado. hoygiisa adigoo yimid oo hadiyad dhowraayay, hantiba ayuu ku siinin hadduu ku hawali waayo. oo hadalka kaan laga heshiin kugu horaysiiyo, hahma waad huraysaa rabbow lagu hadhiimaysto.
dhibaatada carruurta loo geysto waxaa ugu weyn kufsiga dhaqan xumada ah oo lala beegsado hablaha iyo haweenka Soomaaliyeed waa lafdhabarka horumarka, sharafta, karaamada, qoysnimo, ummadnimo iyo qarannimo. kufsiguna waa dembi la galo kan ugu xun oo waxshinimo ama bahalnimo ah. waa wax aan meel kaga jirin islaamnimada, xurmada basharka iyo sifooyinka wanaagsan ee dhaqankeena. kama haro xusuusta gabadha ama hooyada la kufsaday inta xusulkeedu xabaal ka sareeyo, wuxuuna keenaa shoog iyo argagax la rafiiqa dhibanaha uu soo maro. sidaa daraadeed waa in laga hortago waxyeelada foosha xun, ciddii ku dhaqantana la mariyaa ciqaab aan naxariis lahayn, maxaa yeelay waa dembi weyn kuna xun sharafta, karaamada, diinta, ummadnimada, qabka iyo dhaqanka suuban. dhuuxoo u fiirso heestan uu hadraawi inoogu farayaraystay. waa heesta la magac baxday hablaha geeska Afrika oo uu inoogu luuqayn doono Sayid Khalifa. ducashada xanuunka leh waxaanuga golleeyay cudub aad falayba ubadkiisa ducandhiyo dumar shidan ku noqoto gebidhe ku dumisee. ninkaynan magayda ah golqaniinku maale guraac kaga danaysto. waxaad gaaxsanaysiyo gashigaad cunaysiyo xumahaad gelaysaa ruuxay ka go'an tahay gabadhaada weeyo. gefka aad falaysiyo waxaad geysanaysaa galab kale ka sheekayn. gudniinka fircoon bal u fiirso magaciisa. waa magacaad u xun, waa kii diiday rabbigiisa, waa gaalkii sheegtay wuxuunu ahayn ee isku tilmaamay inuu rabbi yahay. waa mid in badan laynooga qisooday oo layna faray inaan iska ilaalino wuxuu ku kacay iyo dhaqankiisii xumaa. gudniinka fircoon waa wax ka soo jeeda caadadii fircoon ee ahayd inuu bedelo khalqiga eebbe. waa hab caqiidadiisii ka mid ah, ciddii samaysaana waa cid ku raacday habkiisii gaalnimada ahaa. ilaah kuma amrin, nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kuuma sheegin inaad inantaada ama gabadhaada mawluhu kuu hibeeyey xubinteeda taranka googoyso, bisna karkarto oo baabi'iso xubinta basharku ka tarmo. gudniinka fircoon waa dhibaato nafsaani ah, caafimaad darro ah, dhaawac jireed ah, sida waxa loo yaqaan episiotomies oo macnihiisu yahay marka la gudayo jeexjeex, marka la guursadana jeexjeex, markay dhalaysana jeexjeex. weligeedba ha ku jirto baqdin, xanuun, argagax iyo xusuus xun oo aan hadhin abidkeed. mid ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo tilmaan ka bixinaysay xubinta sida ay qaali iyo muhiim u tahay waxay tidhi: sheekh dhale, shariif dhale, gaanani gobgeed geliye. dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircoon waxay geysataa xanuun iyo diif weligeed gabdhaha loo geystay aan ka hadhin. intaa wixii kasii faahfaahsan weydii dhakhtarada. wax badan baa laguu sheegay jooji waxaad ku kacayso ee ka soo ergisanayso caqiido kuwa shaydaan maamule u noqday ka soo jeeda. ha bedelin khalqiga iyo samayskiisa wanaagsan, wax maqal oo caqiidada islaamka ku dhaqan. filimka la magac baxay u bixi lama degaanka The Desert Flower. haddaan si kooban uga faalloonno filimkan oo ku saabsan taariikhda gabadh Soomaaliyeed, wuxuu muujinayaa in ay labada dhibaato ee gudniinka fircoonka iyo kufsiguba ku dhaceen, intaa oo ay dheer tahay guur aanay gaadhin waqtigiisa, dooqeedana ahayn, baxsi iyo biime ay cidla u badheedhay, addoonsi la addoonsaday, waxbarasho la'aan soo martay, dibjirnimo dhul shisheeye ay dibjir ku noqotay, bukaan ay turjumaan u weeyey iyo dhibaato xoog weyn oo haleeshay. isku soo wada duub oo markay raad dhaqaajisay ayaa la qashay oo hilbaheeda haada loo waray. markay qaan gaadhaa oday gaboobay gacanta laga saaray, markay carartaa la kufsaday, markay guryo tagtaa gaadiid celiska baad looga dhigay, markii gurigii laga cararaa cidla looga tegay, markaasay London dhex goroslaysay oo ku daafadaha guratay,
ka gadaal la gaalo giniyaad lacageed guudkeeda ku guratay. inkastoo ay gilgilatay oo guriga golaha loo dhan yahay ka guubaabisay in loo gurmado gabdhaha gumaarkooda la googoynayo, misna xusuus aan garoobayn baa lagu gunti furay. waxaa cad in yaraanimadeedii guuldaradii loo geystay ay guweyni la gaadhay. waa filim murugo badan, waa wax in laga gilgisho uu garaadka wanaagsani gocanayo una guntanayo sidii gees looga soo wada jeesan lahaa, guntana looga jari lahaa googoynta gabdhaha geelkudoonka gorgortanka ah, jahli u garbaduubka, kufsi ku gowraca iyo guuldarrada jaan. kitaabkeena qur-aanka ah ma aha kitaab saynis ah oo ay ku qoran yihiin aragtiyo saynis ah sida Newton theory ama instant relativity, balse waxa weeye kitaabu Allah u soo dejiyay in lagu hanuunsho bini'aadmiga oo looga saaro mugdiyada jaahilnimada loona saaro iftiinka islaamka sida uu Allah quraankiisa ku yiri suuradda Ibrahim aayadda 1 xarfaha hore kale waa la soo sheegay macnahooda. kana waa kitaab aanu kugu soo dejinay inaad kaga bixisid dadka mugdiyada xagga nuur idamka eebahood iyo jidka eebaha adkaa ee lama hadiyo. ilaaha iska leh waxa samooyinka iyo dhulka ku sugan, halaagna waxa mudan gaalada cadaab daran xagiis. inkastoo aanu quraanku kitaab saynis ahayn, haddana kama reebna in ay ku jiraan xikmado muranmadoonto ah oo waayadan dambe uu saynisku cadeeyay, taas oo dadka mu'miniinta ah iimaankooda u siyaadinaysa xoog inuu kitaabkani Allah xagiisa ka yimid, sida uu aabaheen Nabi Ibrahim uu Allah uga dalbaday inuu tusiyo sida uu meydka u nooleeyo. markaas ayaa Allah sareeyay ku yiri oo miyaadan rumaysnayn. Ibrahim wuxuu ku jawaabay inaan rumaysnahay iska daayay, waan rumaysnahay. rumeeyay oo ah eray ka xeel dheer ha, laakiin waxaan rabaa ayuu yiri Nabi Ibrahim naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee inuu qalbigaygu ku dego sida ay carabtu ugu mahmaado wax sheegu aragtida oo kale maaha. sidoo kale wuxuu gaaladana u cadaynayaa in uusan Nabi Maxamed oo la yaqaan waqtiga uu joogay iyo meesha uu joogay in uu eebe u soo waxyooday ee uusan isagu meel kale kala iman, sida uu qirtay dhakhtarka weyn ee cilmiga ilmaha embryology Keith Moore ee Kanadiyaanka oo macallin ka jaamacadda Toronto oo leh buugga u caansan cilmigaas oo 8 luqad lagu turjumay oo la yiraahdo The Human Embryology. Dr. Keith waxaa loo geeyay aayadaha quraanka ah ee ka hadlaya marxaladaha uu bini'aadmigu ku maro uurka hooyadiis, wuxuuna yiri in ay sax yihiin iska daaye sida aan ardayda u barno habka quraanka ayaaba ka fudud. waxaa taas ka sii daran marxaladda uu quraanku ku tilmaamay mudqa, wax la calashay ayuu sawiray. markaas aayadda waxayba u egtahay xanjo la calashay oo ilkihii ka muuqdaan. waxaa la weydiiyay Dr. Keith Moore halkaad u malaynaysaa inuu Muhammad cilmigan ka keenay 15 qarni ka hor. wuxuu yiri cilmiga casriga ah ee ultrasound iyo x-ray da'diisu ma dhaafsana 40 sano. marka waxaan leeyahay Muhammad cilmiga Allah ayaa u soo waxyooday ee meel kale kama keeni karo. waxaa la yiri ma adiga oo masiixi ah oo Ciise waan rumaysnahay ayaad sidaa oranaysaa? wuxuu ku jawaabay waxaan aaminsanahay Ciise iyo Muhammadba in hal ilaah u soo wada waxyooday. waxaa kaloo laga codsaday inuu buuggiisa ku qoro aayadahan quraanka ah, wuuna ogolaaday oo waa la daabacay. waxaana la dhahaa The Human Embryology with the Verses of Quran. akhristow taas waxaa ka sii daran 2 warbixinood oo ay soo saareen hay'ado cilmi baaris ah oo Mareykanka ah. midda hore waxaa soo saartay jaamacadda weyn ee Harvard University Researchers oo 15,000 oo dhalinyaro ah oo lagu soo koriyay caanaha formula oo aysan hooyooyinkood nuujin in 22% ay ka buuraadaan ilmaha kale ee hooyooyinkood nuujiyaan marka ay gaaraan da'da 9 ilaa 14 jir. sidoo kale warbixintu waxay ku sii dartay in inta badan ay caruurtu naaska hooyadood nuugaan in ay ka cayil yar yihiin ilmaha aan wax badan la jaqsiin naasaha hooyadood. isla baaritaankaas oo kale waxa iyaduna samaysay macadka qaranka ee caafimaadka Mareykanka NIH kadib markii baaritaan ku sameeyeen 2685 caruur yar yar oo da'doodu u dhaxayso 3 ilaa 5 sano jir. waxay iyaguna heleen in naas nuujintu ay yarayso khatarta uu cunugu buurni xad dhaaf ah ku buuran karo marka uu weynaado. warbixintu waxay intaas ku dartay iyadoo weligeedba dhakhaatiirta iyo
xarumaha caafimaadku ku doodi jireen in naasnuujintu faa'iido u leedahay caafimaadka carruurta iyo hooyadaba, baaritaankan dambe kusoo kordhiyey xiiso hor leh faa'iidooyinka ilmuhu ka helayaan naasnuujinta oo aad iyo aad ugu yar dowladaha reer galbeedka. dowladaha reer galbeedka ee aan u naqaan inay horay u mareen balse haadaanta kasii shalwanaya. sida ay sheegtay warbixintan, boqolkiiba 29 keliya ayaa Maraykanka la nuujiyaa 6 bilood oo ah inta ugu yar oo ay yiraahdeen Akadeemiyada Maraykanka ee Caafimaadka Carruurta American Academy of Pediatrics. buurnida aan ka hadlayno waa buurnida xad-dhaafka ah ee maanta noqotay cudur la iska ilaasho, maxaa yeelay dadka aadka u buurani waxay halis ugu yihiin inay ku dhacaan cudurro halis ah sida sonkorow, cudurka wadnaha, qalalka maskaxda iyo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dadka oo ku quursada. haatan waxaad isweydiinaysaa maxaa haweenka Soomaaliyeed oo yaraantoodii sanad iyo kasii badan la nuujiyay ay u nuujin waayeen carruurtooda? waa su'aal aan jawaab loo helayn. buurnida haweenka Soomaaliyeed badanaa waxay dhacdaa guurka kadib, waxayna ku timaadaa cayil iska ilaalin la'aanta, wixii la doono la ruugo. taasina waxaa kaa celin kara ma jiro adigoo iska celiya mooye. right. laakiin midda aan ka soo hadlay waa mid ku imaanaysa carruurta in laga ilaaliyo cayilitaanka naaska oo loo dhigo inta ay yaryar yihiin. sababaha ugu badan oo aysan hooyooyinka reer galbeedku carruurtooda u nuujin waxaa weeye iyagoo laga rabo inay shaqo dhaqso ugu noqdaan, taas oysan u saamaxaynin goobta shaqada inay ilmaha ku haystaan. diintu maxay ka tiri naasnuujinta? haatanna aan u soo noqonno waxa ay diinteenna sharafta lehi ka tiri naasnuujinta. wuxuu Rabbi qur-aankiisa ku faray in haweenku ay ilmahooda nuujiyaan 2 sano, wuxuuna eebe weyne yiri suuradda Al-Baqara aayadda 233. waalidka hooyooyinku waxay nuujin carruurtooda 2 sano oo dhammaystiran. ciddii doonta inay dhammayso nuujinta kan wax loo dhalayna waxaa saaran cuntadooda iyo radbaxooda si fiican. laguma dhibo naf waxayna awoodin, laguma dhibo hooyo ilmaheed dartiis, lamana dhibo aabbo ilmihiisa dartiis. kan wax dhalayna waxaa saaran taasoo kale. hadday doonaan gurin iyagoo raalli ah iyo wadatashi dhib ma saara korkooda. haddaad doontaan inaad ka nuujin dalabtaan carruurtiina haweeney kale dhib korkiina ma saarna. haddaad u dhiibtaan waxaad bixinaysaan si fiican ka dhowrsada eebe, ogaadana in waxaad camal falaysaan eebe arko. sidoo kale nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu celiyey haweeney uur leh oo uu xad ku waajibay in la dilo markay qiratay inay sinaysatay. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ay ka dalabtay inuu daahiriyo oo xadka ka oofiyo. wuxuu ku yiri horta waa inaad dhashaa ilmaha uurkaaga ku jira. markay dhashay ayay ula timid iyadoo wadata cunug, wuxuuna faray inay 2 sano soo nuujiso oo marka ay naaska ka soo goyso u soo noqoto. kadib ayay sidii yeeshay oo 2 sano kadib iyadoo uu cunugii muufo gacanta ku haysto u keentay. markaas ayuu nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee faray in xadka laga oofiyo. sidaas wuxuu nebigu u yeelay waa faa'iidada uu naasku u leeyahay carruurta marka ay yaryar yihiin. runtii kitaabkeenna qur-aanka wuxuu nagu hanuuninayaa wax kasta waxa ugu wanaagsan iyo toosnaan badan, sida uu eebe weyne yiri suuratu Al-Israa aayadda 9. qur-aankuna wuxuu ku hanuunin dadka arrinta u toosan, uguna bishaarayn kuwa fala wanaag inay mudan ajar weyn. allah wuxuu kaloo yiri isagoo noo sheegaya wixii asaga iyo qur-aankiisa ka soo haray inay baadil yihiin iyo lumitaan. suuratu Yunus aayadda 32. kaasi waa ilaahiina eebihiina xaqa. maxaase xaqa ka dambeeya ka duwan oon baadi ahayn ee xaggee laydin leexin? maanta waxaan la yaabanahay dadka muslimiinta ah ee iyagoo Rabbi siiyey kitaabkaas qiimka ah ee wax kasta isugu jira shareeco, akhlaaq, siyaasad, dhaqaale, taariikh, adab, hanuun, saynis, toosnaan, iftiin, nabadgelyo, ixtiraam, xaqdhowr, cadaalad, nuur, aakhiro janno, adduunkana aflax aan ku dhaqmin ama ka faa'iidaysanayn. kitaabkaas dhankii laga eegaba ah midka la xulanayo oo Allah noo soo dejiyey inaan ku dhaafsano fikrad bini aadmi oo gaaban. taas ayaa ah meel ka dhac iyo habow iyo lumis run ah iyo baadil aan wax ka dambeeya jirin. siduu Rabbi yiri qur-aanka warkiisa mar dambe ayaan ogaan doonaa. toloma marka ay saynis yahanadu inoo sharaxaanba sida Dr. Keith Moore ama Harvard University, taas oo iyaduba fikrad naga maqan ah, mise waa mid ka sii daran
oo ah marka aan dhimanno oo nala soo bixiyo ayaan qur-aanka warkiisa ogaan doonaa. inta aysan taasi dhicin yaynaan qur-aanka wax kale ku doorsan. suuratu saad aayadda 87 iyo 88. waxyiguna waxaan waanada caalamka ahayn ma aha, dhab ahaana waxaad u ogaan doontaan warkiisa muddo kadib. hooyooyinku carruurta 2 sano ha nuujiyeen. qaybta hore waxaan ku soo qaadanay 2 warbixinood ee ku saabsanaa in hooyooyinku nuujiyaan carruurtooda in ka badan 6 bilood. waa haddii ay ka fekerayaan caafimaadkooda iyo caafimaadka carruurtooda. waana warbixin aan ka soo bixin suuqa yoobsan ee ka soo baxday suuqyada sekulaarka iyo jaamacadda Harvard. runtii fadligu waa waxa uu cadowgaagu kuu qiro. sharaxaadda ugu fiicanina waa sharaxaadda uu macallinkaaga aad ku kalsoon tahay kuu sharaxo. haddaba aniga oo la hadlaya waxgaradka Soomaaliyeed ee daba nashleeya macallimiintooda reer galbeedka, tanna wax ma ku qaadan weydeen. xataa macallimiintiinii waxa ay inooga digayaan ma qaadan weydeen. bal tanna qabso. nolosha reer galbeedku waxay ku dhisan tahay caqli bini'aadmi oo dantiisa wata. waxa ugu fiican ee reer galbeedku ku fekeraan wuxuu ku salaysan yahay diin, balse marnaba waa diin lagu dhihi mayo. kutub ayaan ka soo qaadanay lagu dhihi mayo. nebigaa wariyey lagu dhihi mayo ee waxaa lagugu meermeerin magac iyo dad oo xikmad lagaga dhigi. bal u fiirso aabbayaasha xornimada, siyaasadda, dhaqaalaha, akhlaaqda, suugaanta iyo wixii la mid ah. waxaa ugu fiican ay ku doodayaan diin ayay ku salaysan tahay. magacii ninka ayaa lagu sabcinayaa. wuxuu kaloo soo saaray National Institute of Child Health and Human Development ee Mareykanka in carruurta in ka badan 30 saacadood usbuucii joogta guryaha xanaanada ee daycare-ka loo yaqaan waqtiyada hore ee koritaankooda ay la soo koraan inay noqdaan kuwo dabeecad qallafsan, wax maqlid la'aan, cabsi, qalood. intaas oo keliya ma ahee wuxuu baaritaanku ku daray in ay dugsiyada ku yihiin carruurta wax baada, wax disha, xaasidka kuwa carruurta kale. warbixintani waxay wax yar inooga furaysaa inagoo la yaaban waxaan ku samayn lahayn carruurta dugsiyada wax ku baada ama ciyaalka xoogta, taas oo wararkoodu baryahan dambe ku batay dilitaanka ka dhacaya dugsiyada. sidoo kale National Center for Health Statistics waxay ayaguna heleen in uu batay dhalitaanka carruurta aabaha ahayn, wuxuuna gaadhay 33% carruurtii dhalatay sanadkii 1999 wuxuuna celceliskii noqday in ku dhow hal cunug labadiiba oo ay dhalaan haweenka da'doodu u dhaxayso 24 ay yihiin ilmo aan aabba lahayn sida uu sheegay macadkaas oo darsa dhaqanka carruurta. wuxuu baaritaan ku sameeyey 1300 oo carruur ah. ilaa iyo haddana baaritaanku waa socdaa. wuxuuna helay in carruurta waqtiga badan joogta daycare-ka ay yihiin kuwa ka cabsi badan, kana qalood badan, ka khajil badan kuwa wax yar uun jooga daycare-ka ama waalidkood guryaha ku haysto. wuxuuna baritaankani ku soo gabagabeeyey ruux jecel ma jiro inuu arrintan maqlo, maxaa yeelay daycare-ku wuxuu ka mid noqday waxyaabaha lagama maarmaanka u ah waalidiinta shaqaysa, khaasatan kuwa kelida ah. waalid rabaa ma jiro inuu ilmihiisa ku caawiyo xumi ay ku korayaan. inkastoo ilmaha daycare-ka ku koraa uu ka waxbarasho fiican yahay kuwa kale sida ay warbixintu sheegtay, haddana waxay warbixintu ku soo gabagabaysay warkeedii jeclow ama ha jeclaan, waxaan abuuraynaa ilmo dugsiyada ku fiican ama ku jaango-an balse aan ku fiicnayn bulshada dhexdeeda. haddaba akhristow, ma fahamtay dhaqanka aan ku soo kornay ee ah in hooyooyinku ilmahooda ugu xaq badan yihiin inay la joogaan sannadaha ugu horeeya, muhiimadda uu leeyahay iyo sida uu dhaqanka reer galbeedka u kala daadsan yahay laga soo bilaabo nuujintooda ilaa koritaankooda ugu horeeya iyo naxariis darrada ay ka soo qaadayaan guryaha daycare-ka, taas oo ay haatan waxba ka qaban karin reer galbeedku in ay saxaan khalad ay muddo ku qaylinayeen haweenka la xoreeyo. taas waxaa ka sii daran ayadoo hooyada shaqaysa aysan wax dhaqaale ah ku soo kordhinaynin qoyskeeda marka mushaharkeeda laga jaro kharashka ay ilmaha ku geyso daycare-ka ayaa ayadiina ku dayacan tahayoo ay u adeegtaan nin ama boos quruxdeeda u hanqaltaagaya, cunugeedina ay siqiir suujinaysaa jaariyad $1 u hanqaltaagaysaa. goorma ayaanu fahmi doonaa qur-aanka warkiisa? ma marka ay noo sharaxaan macallimiinta reer galbeedku mise marka aan dhimanno ee nala soo saaro? suuratu saad aayadda 88. dhab ahaanna waxaad u ogaan doontaan warkiisa muddo kadib.
marka aad ogaato sida aad carruurtaada u jeclaan lahayd ulana dhaqmi lahayd ayaad ogaanaysaa jacaylka ay kaa mudan yihiin kuwa kale ee kuu baahan oo buugu ku saabsan yahay. Digniin: ilmaha ha u bixin magacyada xunxun ee quusta ama murugada ama maskax madhnaanta tilmaamaya, waayo carabka bini'aadmigu waa shay marag fur ah, waana tii Soomaalidu ka maahmaaday oo tidhi guryo samo iyo lama dege midba magaciisa lagu degaa. U bixi magacyadan toosan ee wanaaggu ku dheehan yahay. Ogow inuu rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee yidhi, magacyo wanaagsan la baxa. Asxaabtana qaar uu magacyadii ka bedelay, qaar kalena la hadheen magacyadoodii iska bedela la yidhi, jeer dambena ka qoomamoodeen. Adeegga badbaadada carruurta: markuu ilmuhu waayo qoys ama qaraabo buuxiso baahidiisa, waxaa lagama maarmaan ah in community-ga ama bulshada ku nool xaafadiisu ay xil iska saarto badbaadada iyo dhaqaalaynta uu u baahan yahay, waayo haddii aan la daryeelin waxaa imaanaysa xilgudasho la'aan ku saabsan waajibaadkii oo laga soo bixi waayo. Badanaa carruurta u baahan taageeradu waa ilmayaasha agoonta ah, ilmayaasha qoysaska danyarta ah ka dhashay, ilmayaasha dad khayral mas'uulihi dhaleen. Si haddaba loo daryeelo carruurta, waxaa lagama maarmaan ah tallaabooyin in la qaado, kuwaasoo ay hormuud u yihiin dowladda, madaxda gobollada, madaxda degmooyinka, madaxda tuulooyinka, madaxda xaafadaha, odayaasha bulshada xoola dhaqatada, odayaasha bulshada beeralayda, odayaasha bulshada kalluumaysatada, culimaa u diinka, ganacsatada, cuqaasha iyo wixii lamida. Malaahiga waxaa loo baahan yahay in la ururiyo loona sameeyo xarumo lagu xanaaneeyo waxna lagu baro. Tusaale wanaagsan waxaan u soo qaadan karnaa agoonta ku xiraysan meelo badan oo dad muxsiniinihii waxtar u geystaan. Waxaana leenahay hawlka madaarooyin weli waa hogadii. Tusaale aan u soo qaadanno xarunta agoonta Ugaas Khaliif ee Beledweyne. Sida aad la wada socotaan, hay-adda Alxaramayn waxaa laga xanibay dhaqaalihii ay mashaariicda samafalka ku bixin jirtay, oo ay ka mid ahayd kafaala qaadidda agoonta, iyadoo wadamo badan oo adduunka ku yaala gaar ahaan dunida muslimka gacan weyn ka geysan jirtay xanaanaynta agoonta. Wixii markaa ka dambeeyay waxaa agoontan soo wajahay xaalado aad u adag, iyagoo waqtiyada qaar haystay kafaala qaad dhammaystiran sida jiif, cunno, waxbarasho iyo daryeelka caafimaad, halka xilliyada qaarkoodna aysan intaa wada heli jirin oo marar dhowr ah inta dhaqaale loo waayay la kala diray. Alle ayaa mahad idaylkeed iska leh, kadibna waxaa mahaddaas iska leh muslimiintii ka qayb qaatay daryeelka agoontaas. Jasaakumullahu khayran walaalayaal. Waxbarashada xarunta agoonta Ugaas Khaliif ee Beledweyne waxay u qaybsantaa laba qaybood oo kala ah: qaybta dugsiga Quraanka Kariimka ah iyo qaybta waxbarashada dugsiga aasaasiga ah ee hoose dhexe. Qaybta dugsiga Quraanka Kariimka ah, qaybtani waa qaybta ay agoontu ku barato xifdinta, qorista, akhrinta Quraanka Kariimka ah iyo axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo qaybo kale oo faa'iido u leh. Qaybta dugsiga hoose dhexe ee xarunta Ugaas Khaliif. Dugsigani waa dugsi ama iskool hoose dhexe, wuxuuna ka kooban yahay 4 fasal oo ay isku bedbedelaan iyagoo ku barta maadooyinka hoos ku yaala. Waxaa lagu bartaa maadooyinka kala ah Carabiga, af Soomaaliga, sayniska, taariikhda iyo juqraafiga, tarbiyadda diiniga ah, xisaabta, Ingiriisida iyo wixii la mida. Jiifka agoonta xarunta agoonta Ugaas Khaliif ee Beledweyne waxay leedahay qayb jiif oo ka kooban 8 qol oo 4 ka midii ka baxsan yihiin xarunta gudaheeda, laakiin aan sidaa uga sii fogeyn oo ilaa 100 tallaabo u jirta, taasoo ay ugu wacan tahay markii ay korortay laabantay tirada agoonta oo ay noqdeen 112 agoomood, halka ay markii hore ka ahaayeen 57. Qol walba waxaa yaala sariiro uu u dhammaystiran yahay furshaantooda, waxaana u dheer in sariir walba leedahay mara kaneeco, maadaama ay magaaladu leedahay kaneeco badan oo ka timaada Webi Shabeelle oo mara magaalada dhexdeeda. Sariirahaas ay agoontu ku jiifsadaan waa kuwo isdul saaran laba, sida ay u kala waaweyn yihiin ayaana loo kala sare mariyaa agoonta. Tusaale, qofkii waxoogaa roon waxaa la seexiyaa dusha sare iyadoo kan yarna hoos la seexiyo. Dhaqaalaha xarunta agoonta Ugaas Khaliif ee Beledweyne. Mar haddii dhaqaale la jaangoynayo ama la rabo in laga hadlo, waa lagama maarmaan in la ogaado tirada agoonta ee ku xiraysan xarunta Ugaas Khaliif ee Beledweyne. Tiradaas oo miisaan ahaan ama qiyaas u noqonaysa dhaqaalaha baxaya
haddaba xilligii ay hay-adda alxaramayn gacanta ku hayn jirtay tirada agoontu waxay ahaayeen 50 agoomood kharashka ku bixi jiray bishii guud ahaan wuxuu ahaa $1,500 taasoo ka turjumaysa in agoon kasta ay ku baxdo ama ku filan tahay $30 ayna ka daboolayso waxyaabaha soo socda a hoyga ba cuntada a waxbarashada da caafimaadka e aradbaxa iyo wixii la mid ah waxaanu tusaalahan ka fahmi karnaa waa inaan baahideena daboolan karno iyo in ay mudan tahay inaan agoonteena wax ka siino waxa aynu faraha ku hayno sidaa daraadeed waxaa looga fadhiyaa bulsho kasta inay isu xilqaanto caruurta walaalaheen ah ee waqtigu oo fureenka ku yahay innagana imtixaanka inagu ah ilaahayna garansiiyo waxaan kaloo leeyahay hal la taageero xarumaha agoonta kuwa u baahan in la dhisana hal la dardar geliyo dhismahooda iyo wax u qabashadooda maadaama aynu caruurta dhibaatooyinkeeda ka hadlaynay waxaa mudan inaan ka sheekayno waxyaalaha ay lagama maarmaanka tahay inaan ka hadallo oo la xidhiidha caruurta waana hooyadu qiimo weyn bay ku fadhidaa mana mudna in hooyada xaqeeda la duudsiyo ama looga garaabi waayo waayaha adag ee ku xeeran hadalhaan ma buuxshee hooyada iyo muhiimadeeda waxaa ku farayaraystay abwaankeena qiimaha leh ee Soomaaliyeed waa Maxamed Warsame Hadraawi waxaan aad u filayaa inay heestani mudan tahay in aad loo fahmo qiimaha ay ku fadhidana loo fiirsi lahaado waxaana taas uga jeedaa caruur badan inay sabab u tahay dhibaatooyinka la soo dirsaa hooyooyinkood oo laga eriyo ama laga kaxeeyo waxaana mudnaan leh heesta dhammaanteed u fiirso oo dhuux heesta oo buuga ku qoran waxaan inooga soo qaadnay tudcahan hikaad lama barteeno wiilaanta hadaa lama kareeno ruuxaanad habeeno kolbaanad heesiyo obay ku sabiino hawshaada waaya anaba dimaaye wiitafsaada dugsi laga helaayo wiidhabtaada hurda lagu gamaayo wiidushada nabaad lagu helaayo waxa lagu halmaalaa hoyaaba bintaade hay lagu baadhaadhaay ugu lagu qabuubaay ugu lama huraane dugsi lagu hirtaaye ida lagu arooraay intaad hooyo nooshay hambaliyo salaam baan hantikaaga dhigaya amrashiyo xaq dhawr baan dusha kaa huwinaya hooyo dhimashadaaduna oogayga weeyo weligay hoggaagan ka duleesiyaayo igii laabsan kugu haynayaayo engel baanu xidhayaa intaad ka duushiyo gidi habar dugaagee